laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa lagu dilay maahan macquul. xafladii Kin Jaamac Djibouti ka dhacaysay xalay nin gowrac la yiraahdo ciidan wata ayaa soo galay in xafladda toojiyo dabcay wuxuu rasaas ku furay dhalinyaradii xafladda. Ethiopia afka kama sheegin waa ka dhowrtay afka laakiin way aqoonsan tahay Soomaaliland. safaarad baa uga furan baasaboorka Soomaaliland lagu tagaa. dadka ka soo horjeeda qadiyadda Soomaaliland ayaa aaminsan qadiyadda Soomaaliya ama aaminsan qadiyadda qabiiliga asal ku haysa Soomaaliland nacaybka inta badan waxay si indhalaan ugu doodaan markii ay Soomaaliland ka xorowday Ingiriiska calan nooc ayaa laga taagay Hargeysa. haddii calanka laga taagay Hargeysa uu ahaa calanka buluuga ma jiro gobol ka xoroobay Ingiriiska. qofka hadda ku doodaya mara meel laga taagay ama calan meel laga taagay qofkaas isaga wax ku soo noqonaysa su'aashaas oo ah inta la qaadan xornimada 60kii ka hor ma jirto dowlad yiraahdo Soomaaliya oo ay ku mideysnaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya. haddaysan jirin adigana ma jirto sabab aad ugu doodaa calan ama mara meel laga taagay. haddaad maqli jirtay 70 jir ama 80 jir ka adag bir meel kale ka raadin oo Muuse Biixi horta daadu waa lambar laakiin muhiimadu waxay tahay qofka xasuustiisa maskaxdiisa iyo awoodda jirkiisa. labadaas qofka bini'aadanka haddii u caafimaad qabaan isaga iyo 20 jirka wax farqi uma dhaxeeyo. haddii la oran lahaa waa hadiiba haddii la oran lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa loo kala saarayaa ciyaar feer ah oo la isku balamin lahaa Muuse Biixi iyo Xasan Sheekh adigu yaas oran lahayd guusho way raaci lahayd. midna oo goob ku degdegin Xasan Sheekh wuxuu ka mid yahay lood ku soo koray macsaradii Moofar. bismillaah saaxiib yal soo dhawaada marka hore marka ay tiraan muuqaalkan fagayso meel fog gaar waxaan rabaa inaan ka dabageeyo xaaladaha ugu dambeeyay bariga Sool gaar ahaan Laascanood ku dhawaad xalay 5 qofood ayaa lagu dilay gudaha Laascanood. qodobkaas intaan gudaha u galin waxaan rabaa inaan ka hormaro muuqaalkan Muuse Biixi hadda idin muuqdo. muuqaalkan ayaa noqday saacadii ugu dambeysay muuqaalkii ugu falcinta badnaa social media qaybta ay ka isticmaalaan Soomaalida. haddaad maqli jirtay 70 jir ama 80 jir ka adag bir meel kale ka raadin oo Muuse Biixi horta daadu waa lambar laakiin muhiimadu waxay tahay qofka xasuustiisa maskaxdiisa iyo awoodda jirkiisa. labadaas qofka bini'aadanka haddii u caafimaad qabaan isaga iyo 20 jirka wax farqi uma dhaxeeyo. awoodda qofka bini'aadanka jirkiisa ku jirta laba siyaabood ayuu ka helaa. mid waa rabbaani oo Allah ku beera midna qofka isaga sameeysta. qofka hadduu exercise badan uu sameeyo waxa sii kordhaysa awoodda maskaxdiisa iyo awoodda jirkiisa. marka hadda Muuse Biixi labadaas baa u kulansaday sida haddaba isaga ka muuqata mid rabbaaniga ah mid qofka bini'aadanka uu sameeyay. Muuse Biixi waa askari qofka askariga ahna isaga qofka caadiga ah isku awoodna ma ahan isku jirna ma ahan. dad badan baan u jeeda cayayaanka duur raxan u shiraysa sidii yeeyda duur damir faras gaari waa hoon waa kaashin miyaa waana doogtine. waxaan moodaa Muuse Biixi bariga inuu ka wado dholotus markay isku dhacaan laba dal awood leh oo kala baqayaan mid walba wuxuu sameystaa dholotus ku soo bandhigayo awoodiisa. marka Muuse Biixi waxa la oran karaa bariga wuxuu ka wadaa dholotus ku soo bandhigayo awoodda qof ahaantiisa. labada sano ugu dambeysay qolyahan is hayaan Soomaaliland waxay lahaayeen Muuse Biixi ma soo hogaamin karo Soomaaliland hadda wixii ka dambeeya uu duqoobay uu xanuunsan yahay. laakiin hadda Muuse Biixi soo bandhigay inuu yahay muusihiisii karbaashi jiray bari culusta iyo cid kastoo cadow ku ah Soomaaliland diyaarna uu yahay awoodana uu leeyahay inuu soo hogaamiyo Soomaaliland 10 sano ama 20 sano hadda kadib haddii ay shacabku u kiishaan. haddii la oran lahaa waa hadiiba haddii la oran lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa loo kala saarayaa ciyaar feer ah oo la isku balamin lahaa Muuse Biixi iyo Xasan Sheekh adigu yaas oran lahayd guusho way raaci lahayd. midna oo goob ku degdegin Xasan Sheekh wuxuu ka mid yahay lood ku soo koray macsaradii Moofada. 30 sano ugu dambeeyay ama 25 sano ugu dambeeyay Soomaaliya lahayd dowladda kadib burburkii dowladda Siyaad Barre. Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ka dhaxeeya dood adag oo ku haysa qadiyadaha labada shacab iyo labada dalba ama waxa tiraahdaa labadii gobol ee midoobay 60kii. doodaas adag ku haysa qadiyadaha labada dal waxay soo xoogisatay 2 sano ugu dambeysay kadib markii Soomaaliya oo ahayd gobolkii 60kii la midowday Soomaaliland ay xaqiiqsadeen in la joogo waqtiga aduunkiisa kale ka helay Soomaaliland aqoonsi Itoobiya noqonayso ama noqotaba wadanka ugu horeeyay Soomaaliland aqoonsatay. Ethiopia afka kama sheegin waa ka dhowrtay afka laakiin way aqoonsan tahay Soomaaliland. safaarad baa uga furan baasaboorka Soomaaliland lagu tagaa. wasiir walba wasiirka dhigiisa la kulma madaxweynaha waxa la kulma ra'iisul wasaaraha marka heshiisay galaan kala saxiixdaan si isla eg oo isku mid ah. dhinac waa ka khatar kale ayaa jirta oo ah in dadka reer Somaliland ay u arkaan
wax aan isu abaabulayno ama shucuurteennu ay tahay mid south iyo north ah. Soomaaliya khilaaf waa ka jira oo awba waa jira somaliland iyo soomaaliya. mar kasta waa inaan caddayno oo ay muuqato oo gaar ahaan dadka aan waqooyi ka soo jeedin cabdifitaax sida u hadlay haddaan anigu u hadla hadda waxaa dhici lahaa wax kale. dadka ka soo horjeeda qadiyadda Somaliland ee aaminsan qadiyadda Soomaaliya ama aaminsanba qadiyadda qabiiliga asal ku haysa Somaliland nacaybka inta badan waxay si indhalaan ugu doodaan markii ay Somaliland ka xorowday Ingiriiska calan noocee ayaa laga taagay Hargeysa. haddii calanka laga taagay Hargeysa uu ahaa calanka buluuga ma jiro gobol ka xoroobay Ingiriiska. qofka hadda ku doodaya mara meel laga taagay ama calan meel laga taagay qofkaas isaga wax ku soo noqonaysa su'aashaas oo ah inta la qaadan xornimada 60kii ka hor ma jirto dowlad Iiraan Soomaaliya oo ay ku mideysnaayeen Somaliland iyo Soomaaliya. haddii jirin adigana ma jirto sabab aad ugu doodaa calan ama mara meel laga taagay. dadka hadda ku doodaya 60ka ayaa laga taagay calanka buluuga Hargeysa. horta waqtigaasi calankaasi ma ahayn calanka Soomaaliya, wuxuu ahaa calan ay sameysteen dad Soomaaliyeed oo isku raadinaya shantii isku oran jiray shantii Soomaaliyeed sida hadda ka muuqata calanka buluuga xidigta dhexda kaga taal. xidigtaas waxay u taagan tahay shantii isku oran jiray shantii Soomaaliyeed. in la isku raadiyo la mideeyo shantii Soomaaliyeed reer Somaliland hormuud ay ka hayeen waana sababta keentay iyagoo xornimo haysta in la midoobaan goboladii koonfureed oo ka xoroobay gumeystihii Talyaaniga. midda kale 60kii ka hor ma jirin dal ama dowlad Iiraan Soomaaliya ee waxaa jiray deegaano Soomaaliyeed oo ay gumeystayaashii Talyaaniga, Ingiriiska, Faransiiska iyo gumeystayaasha madowga ah dhulka ay haystaan ay ku wareejiyeen gumeystayaashii cadaanka ahaa. ugu dambeyntiina gudaha Laascaanood xalay waxaa lagu dilay 5 qof oo 5taasi 3 ka mid oo dhaawac halka labada kalena ay dhinteen. labada dhimatay mid ka mid waxaa lagu dilay kontaroolka magaaladaasi waana kana sawirkiisa. afarta kale soo hartay oo ka mid yahay mid ka dhintay. dhimashadaas dhaawacaas waxa ka soo gaadhay buuq dhashay xaflad ka socotay mid ka mid ah hoteelada ku yaala Laascaanood. فولح بحالي لصعب كداعي oo aqliga bili aadanka aan gali karin. laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa lagu dilay maahan macquul. xafladii keen jaamaca Djibouti ka dhacaysay xalay nin gowrac la yiraahdo ciidan wata ayaa soo galay inuu xafladda joojiyo dabcay wuxuu rasaas ku furay dhalinyaradii xafladda joogtay. fiidiyoga aad aragtaan aad soo daawateen waa wiil yar oo hooyadiis iyo walaashiis taagantay ka dul marooranayaan oo dhaawaciisa kaliya ka dhakhtarka weyn noo geeyay ay leeyihiin. aqliga bili aadan gali mayso dadna inay iska duubtaan dadna ay dul taagan yihiin booliskuna ay leeyanayaan dadka shacabka ah. waxaa kaloo dhibaato ah isna egas control lagu dilay inuu gaariyahana oo Nuur Axmed ilaa haddana cidish aan lahayn xalay. waxaa kaloo isna lagu dilay wiilka yar oo Axmed Giraad Hareer ah. waxaa kaloo lagu dhaawacay nin barkad ah oo isna dhalinyarada dhaawacantay ku jira. 3 qof ayaa xalay Laascaanood lagu dilay. dhibaatada ugu weyn waa dowlad la'aanta Laascaanood ka taagan oo aysan wax dowlad aysan ka shaqeyn. waxa dadka u leynayaan waa booliskii ay shacabku doorteen ay keensadeen. Laascaanood inta ku sugnay Somaliland waxa ka dhici jiray dilal aan badneen oo ay isu geysan jireen dadka deegaankaasi. laakiin dadka deegaankaasi dilalka ka dhici jiray Laascaanood waxay ku eedeyn jireen Somaliland. inta hadda ay ka soo maqanta deegaankaasi Somaliland waxa ka dhacay dilal aad u fara badan oo ka badan dilalkii ka dhici jiray waqtiga ku sugnay Somaliland deegaankaasi. waxayna caddeyn u tahay dilalka hadda ka socda Laascaanood deegaanada hoos yimaada markii hore dadka deegaankaasi inay ayagu isleeyin jireen.